السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada qaybta labaad ee qisadii nabiyullah aadam iyo barnaamijkii qisooyinkii nebiyada. qaybtan labaad waxaan ku arki doonaa sababtii bani aadam loo dhahay insaan iyo sujuudi malaa'igta iyo ibliis sababta jannada loogu ceeriyey iyo goortii nebi aadan iyo xaawa dhulka u soo degteen iyo dagaalkii qaabiil iyo haabiil iyo geeridii nebiyullah aadam calayhi salaam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مر لباد iyo barnaamijkeenii qisooyinka nebiyada. qaybtii horey ee qisadii nebi aadam waxaan ku joojinay markii nebi aadam faraciisa la tusay oo ka dhex arkay nebi daa'uud oo cumrigiisa uu ka siiyey 40 sano. intaasi kadib alle subxaanahu wa tacaala nebi aadam ayuu magacyada baray, magacyada waxyaabaha nool iyo kuwa aan nooleen, iyo magacyada insaanka iyo magacyada xoolaha iyo geedaha iyo wixii la mid ah. kadib alle wuxuu malaa'igta ku amray inay u sujuudaan nebi aadam calayhi salaam. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. malaa'igta dhammaan way u sujuudeen nebi aadam, rabbigoodana way adeeceen, laakiin ibliis wuu diiday inuu u sujuudo nebi aadam calayhi salaam. kadib alla subxaanahu wa tacaala ibliis ayuu ku yidhi, qaala maa manacaka anlaa tasjuda id amartuka qaala ana khayru minh khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله سبحانه وتعالى إبليس عكيري محاكاري بينات سجود مركان كو أمري. إبليس عويري أنا كقير بدن أني وحات إيقا أبورتي دب أساقنا وحات كأبورتي عيد. الله وحو إبليس كويري جندا كبح الروح كبرايكم منولانا يا جندا. sidaas ayaa ibliis jannada loogu soo saaray. ibliis intuu jannada ka soo bixin hal shay ayuu alle ka codsaday. wuxuu yidhi, rabbiyow nafta ha ii qaadin ilaa maalinta qiyaama. alle codsigiisa wuu ka aqbalay, balse wuxuu yidhi, naarta ayaad gali doontaa. sidii ayuu ibliis jannada ugu soo baxay, nacladda allana way fuushay. sidoo kale alle wuxuu u bixiyey magacyo kala duwan oo kala ah shaydaan, rajiim iyo laciin iyo taaquut. intaasi waa magacyada shaydaanka. nebi aadanne jannada ayuu degay, keligiisa ayaa ku noolaa. muddo kadib nebi aadam wuu cidlooday, kelinimo ayuu dareemay. markaasi ayaa maalin maalmaha ka mid wuu hurday, weliba hurda dheer ayuu hurday. alle ayaa dhinaciisa ugu abuuray xaawo si ay u noqoto xaaskiisa. nebi aadam hurdada markuu ka soo kacay wuxuu u arkay naag qurux badan, wuu ka helay quraxdeeda iyo wanaaggeeda. nebi aadan iyo xaawa sidaas ay jannada ku wada noolaadeen oo ay ka cunayeen jannada miraheeda. kadib alle wuxuu nebi aadam xasuusiyey inuu ibliis cadowgiisa yahay. wuxuuna yidhi, faqulnaa yaa aadamu ina haadaa caduwun laka walizawjika falaa yukhrijannakumaa min aljannati fatashqaa. ibliis cadow ayuu idinku yahay, adi iyo xaaskaaga ee iska ilaaliyo jannada idinka saarin. ibliis jannada bannaanka ayuu ka jiray, wuxuu raadinayay xiilad oo ku soo galo oo nebi aadam ugu saaro jannada. sidaas darteeda alla nebi aadam wuxuu ku yidhi, waqulnaa yaa aadamu askun anta wasawjuka aljanna wakulaa minhaa ragadan xaysu shi'tumaa walaa taqrabaa haadihi ashajara fatakuunaa min aldaalimiin. oo macnaheedu ay tahay, adi iyo xaaskaaga jannada dega oo ka cuna meeraheeda oo idil, laakiin geedkani ha ka dhowaanina. haddii aad ka dhowaataan waxaad noqonaysaan daalimiin. ibliis jaanis ayuu u arkay. jaaniska ah geedkan oo alla xaaraan ka dhigay si ugu waswaaso nebi aadan si uu jannada ugu saaro. muddo badan ay ku qaadatay, laakiin ugu dambeyn ibliis nebi aadan iyo xaawa, geedkani mirihiisa haddaad cuntaan ma dhimanaysin ayuu ku yidhi, waana ugu dhaartay. markuu magac alle ku dhaartay way aamineen, geedkiina way cuneen. nebi aadan iyo xaawa sidaas ay dembi ku galeen.
alleh way ku caasiyeen laakiin waa ay ka toobad keeneen dembigaasi. kadib allah wuxuu ku amray inay dhulka ay degtaan, dhulkana ay camiraan. maalmihii jannada sidaas ay u dhammaatay, adduunyada ay soo degeen. muddo kadib Xaawo uur ayay qaaday, waxayna ahaayeen mitaano. mitaanahaas waxay noqdeen wiil iyo gabar. wiilka wuxuu u bixiyey qaabiil, gabartana kaleema. mitaanahaas markay dhashay muddo aan dheereen kadib uur kale ayay yeelatay. uurka labaadna mitaano ay noqdeen. sidoo kale waxay noqdeen wiil iyo gabar. wiilka wuxuu u bixiyey haabiil, gabartana wuxuu u bixiyey labooda. carruurtii waa ay weynaadeen, waxaa la gaaray xilligii laisu guurin lahaa. shariicada xilligaasi jirtay, laba isla dhalatay waa laisku guurinayay, laakiin hal shardi ayaa jiray, kaasoo ah inaysan noqonin labadii mataano isla dhalatay. waa inay kala ahaadaan laba calool. qaabiil waxaa ku soo aaday labooda, waa midii la dhalatay haabiil. haabiilna waxaa ku soo aaday kaleema, midii la dhalatay qaabiil. labada gabdhood waxaa qurux badneed kaleema, waa midii ku soo aaday haabiil. qaabiil middaas ayuu ka xanaaqi, guurkaasini wuu u diiday. wuxuuna yidhi, kaleema anigaa xaq u leh, mitaanteedii ayay tahay. nebi aadam wuxuu yidhi, taasi ma la samayn karo, waa xaaraam. kadib nebi aadam talo ayuu keenay, taladaasoo ah in alle qurbaan u dhigtaan ama u hibeeyaan. alle midka oo ka aqbalo, midkaasi ayaa guursanaya kaleema. alle wuxuu ka aqbalay haabiil. haabiil ayaa nasiibkiisa noqotay kaleema. qaabiil walaalkiisa ayuu cadowtinimo u qaaday, shaydaankana middaasi ayuu ka faa'iidaystay. wuxuu u waswaasay si uu walaalkiisa u dilo. qaabiil wuxuu meel cidla ku helay haabiil, sidaas ayuu ku dilay. markuu dilay kadib wuxuu ku wareeray meydka, wuxuu ku sameeyaa talow. markaasi ayaa alle laba tuke u soo diray. labada tuki bay isdagaaleen. kadib midkooda ayaa kan kale dilay. midka kale god ayuu faagay, tukiga kale ayuu ku aasay godka. qaabiil tukiga ayuu ka bartay sida meydka loo aaso. nebi aadam waa uu ka naxay geerida haabiil, waxa uuna ka xumaaday in ibliis carruurtiisa isu diray. nebi aadam intaasi kadib muddo badan ayuu noolaa, waxaana u dhashay carruur badan. markii ay geeridiisa soo dhowaatay, wuxuu kala dardaarmay carruurtiisa inay ibliis iska ilaaliyaan, sidoo kale inay alle caabudaan keligiisa, ayna la shirkinin wax kale. nebi aadam calayhisalaam markii geeridiisa la gaaray, malaa'igta ayaa u timid, waxayna ku dhaheen, nafta ayaan kaa qaadaynaa. wuxuu ku yidhi, wakhtigey weli lama gaarin, ee 40 sano ayaa ii dhiman. malaa'igta waxay ku dhaheen, 40 sano waxaad siisay nebi daa'uud. nebi aadam wuu ilaaway. sidaasi ayaa bini'aadanka loo dhahay insaan. malaa'igta nafta ayay ka qaadeen, ayaga ayaa dhaqeen, ayaga ayaa aaseen. carruurtiisana waxay u dhaheen, tani waa sunnadiinna, hadda kadib sidaan isku aasa. qisadii nebiyullaahi aadam meesha ayay ku dhammaatay. qisadeeni soo socota waxay noqon doontaa nebiyullaah nuux calayhi salaam. intii qisada ka laga gaarayo ha ka ilaawin janaalkeenna like iyo sabscribe iyo sheer. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.